Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Aqoon Doon Channel. Waa cashirkeenii labaad ee maadada JavaScript. Cashirkan waxaan nooga hadli doonaa the role of JavaScript in web dev ama web development. Doorka JavaScript ee ku leedahay marka laga hadlayo web developmentiga. Intaynan taa ka hadlin, marka hore waxaa muhiim ah inaan ogaano HTML iyo CSS iyo JavaScript. sababtoo ah JavaScript waxaan la isticmaali doonaa HTML iyo CSS. waxaana muhiim ah inaad ogaato haddii aad rabto inaad JavaScript barato waa inaad HTML iyo CSS-ka wax un ka taqaanaa ama waxyaabaha basic ay leedahay aad taqaanaa sida tagiska iyo waxyaabaha kale la midka ah. haddii aadan waxba ka aqoonna waxaa jirta tutorial aan ka sameeyay HTML-ka, waxaad ka heli kartaa page-kayga. sidoo kale waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka. waxaan aad u ogsoonahay in HTML-ka ay tahay waxa inoo xambaarsan contentiga uu yeelan doono page-kaas oo idil. tusaale ahaan, qoraalka ka soo muuqanaya page-ka, sawirada, muuqaalada, buttons-ka, dhammaan waxyaabahaasoo dhan waxa inoo xambaarsan waa HTML-ka. CSS-ka waa waxa inoo suuragelinayo contentigaas inaan u sameyno style. tusaale ahaan, inaan alignment u sameyno qoraalada halka ay ka soo muuqanayaan ama sawirada, inaan color siin karno iyo waxyaabo kale inta la mid ah. JavaScript-na waa programming language-ka inoo suuragelinayo ficil walba oo page-kaas ka dhex dhacaya. waxaan rajeynayaa in halkaa aad loo fahmay. qaybta kale ee aan ka hadli doono waxay tahay inaan setup ku sameyno environment-iga aan u adeegsan lahayn JavaScript-iga. waxaa jiro code editors badan oo loo adeegsado marka la sameynayo web development-iga. xilligan aan hadda taagannahay, code editorska midka ugu caansan waxaa loo yaqaanaa Visual Studio Code ama VS Code, oo web developerska iyo kuwa kale la midka ah ay 90% wada adeegsadaan. haddaba waxaan tegaynaa browserkaan isticmaaleyno, kadibna waxaan raadinaynaa ama qaybta search bar-ka aan ku qoraynaa VS Code ama Visual Studio Code. kadibna waxaad ku dhufanaysaa linkiga ugu horeeya ama page-ka visualstudiocode.com. intaa markaa sameyno waxaa inoo soo kici doona page-ka Visual Studio Code. kadibna waxaan awood u yeelan doonaa inaan download ahno oo aan la soo degno Visual Studio Code-ka. haddii aad isticmaaleyso OS-ka Windows ama kombiyuutarkaaga haddii uu ku jiro Windows, waxaad dhihi doontaa download for Windows. VS Code-ka markaad soo download gareyso oo aad ku shubto kombiyuutarkaaga, waxa uu yeelan doonaa interface-kan ama qaab muuqaalkan. waxaad u baahnaan doontaa marka inaad wax badan ka fahanto qaabka loo adeegsado iyo siduu u shaqeeyo. balse ujeedkeena ma ahan inaan VS Code-ka sharaxno, kaliya waxaan tilmaami doonaa qaabka aan u adeegsan doono. ugu horeyn waxaan u baahnaan doonaa inaan la soo degno waxyaabo la dhaho extensions. extensionska badanaa waxay kaa caawin doonaan xilliga web development-iga. ugu horeyn, extensionka aan kula soo degi doono muuqaalkan waxaa la dhahaa live server-ka. waxa uu kuu suuragelinayaa koodkaaga markaa qorto inaad si automatic ah oo live ah la socon karto output-ka ka soo baxaya koodkaas. live server markaa halkaa ku qorto waxaad ku dhufan doontaa halkan, anigu wuu igu jiraa, balse adiga waxaad dhihi doontaa install. waxaan hadda qori doonaa koodkeenii ugu horeeyey ee JavaScript. maxaan u baahannahay marka ugu horeyn inaan samaysano? waxaan u baahannahay inaan samaysano dhowr waxyaabood. tusaale ahaan, sida quruxda badan waxay tahay faylashaada aad isticmaalaysid inaad ka dhigtid kuwa organized ah oo habaysan. waxaad imaanaysaa sidebar-kan, waxaadna ka dooranaysaa midka ugu horeeya. markuu sidan inoogu soo baxo, waxaa aragnaa halkan inay taalo 2 icon. labadana icon midka ugu horeeyo waxa uu ka turjumayaa inaad samaysid new file. sidoo kale midka kale xiga waxa uu ka turjumayaa inaad samaysid new folder. ugu horeyn marka waxaa muhiim ah inaad samaysid new folder, kadibna faylasha aad sameynaysid inaad ku keydisid folderkaas. waxaan ku dhufanaynaa calaamadda pluska ah, kadibna folderkan waxaan u bixinaynaa magac. tusaale ahaan, waxaan ku qoraynaa JS ama JavaScript tutorial. folderka markaa sameyno, waxaan ku dhufanaynaa folderkaas oo waxaan gudaha u gelaynaa folderkan. kadibna faylka aan rabno inaan samaysano ayaan ku dhex abuuri doonaa folderkaas gudihiisa. waxaan ku dhufanayaa calaamadan kale ee new file ah. faylkan markaan sameyno, faylka ugu horeeya ee aan rabno inaan sameyno waa inuu noqdaa faylka HTML-ka. kadibna waxaan sameyn doonaa fayl kale
oo aan ka dhigi doonno faylkaan u isticmaalayno javascriptiga. ugu horeyn marka faylkan waxaan ku qoraynaa tusaale ahaan index.html. faylka markaan samaysano si automatically halkan ayuu ka soo muuqan doonaa oo koodkeeni halkan ayaan ku qori doonaa. waxaan mar kale ku dhufanayaa calaamadaas oo new faylka ah, kadibna waxaan ku qoraynaa magaca aan rabno. tusaale ahaan waxaan isugu qoraynaa tutorial.js. faylkan marka wuxuu noqon doonaa fayl javascriptiga aanu isticmaalayno. marka enter dhahno sidoo kale faylkan halkan ayuu ka soo muuqan doonaa. code editorkan loo yaqaano Visual Studio Code ama VS Code-ka waxyaabaha uu aadka ugu wanaagsan yahay waxaa ka mid ah haddii aad rabto inaad code qorto as a professional uma baahnid inaad tag furto ama xirto. laakiin waxaan kugula talin lahaa haddii ay tahay markii kugu horeysay ee code-ka aad qorayso inaad baratid syntax-ka ama qaabka loo qoro code-kaas. annaga waxaa u baahannahay inaan isticmaalno HTML. si fudud waxaan awood u leenahay taagiska dhammaan kuwa basiga ah inaan ku furi karno anagoo isticmaalayna calaamadan loo yaqaano calaamatu tacajab. markay calaamadda ay noo soo baxdana waxaan leenahay enter. waxaan aragnaa basic tagiskii loo baahnaa oo idil oo uu HTML ku lahaa in halkan ay noogu qoran tahay. waxaan leenahay save. waxaan imaanaynaa qaybta baadhiga. tusaale ahaan waxaan iska samaysanaynaa paragraph. haddii b aad taabato oo wax taaga aadan furin waxaan arkaynaa in b halkan ay ka soo muuqanayso. haddii enter aan dhahnana si automatically taaga uu furmi doonaa wuuna xirmi doonaa. kadibna halkan waxaan ku qoraynaa paragraphkaan rabno in pagekeena uu ka soo muuqdo. waxaan haddaaya soo sheegnay oo aan dhahnay haddii aad u baahan tahay inaad VS Code-ka isticmaasho waxaad u baahnaan doontaa inaad hesho waxyaabo loo yaqaano extension. waa annagii ku soo shubannay extensionka loo yaqaano live server. hadda sideen u isticmaali karnaa live serverka? si live serverka aan u isticmaalno waxaad imaanaysaa meeshan hoose oo ay ku qoran tahay go live. halkaa markaa ku dhufano automatically waxaa soo kici doona browserkeena. waxaan hadda awood u leenahay marka in aan imaano halkan kadibna drag and drop aan isticmaalno oo aan jiidno kadibna geeskaa geeno. si automatically waxa uu ku dhigi doonaa qaybtan bidix. sidoo kale waxaan awood u leenahay code editorkan inaan xaggan geeno oo halka aan ku dhijino. waxaan arkaynaa koodkeena inuu halkan ka muuqdo. sidoo kale natiijada ama resultiga aan rabno inay inoo soo baxdo iyadana in halkan uu ka soo muuqanayo. haddii marka side by side-kan isticmaalayso mararka qaar waxaa laga yaabaa koodkaaga qayb ka mid ah inuu qarsoomo. maxaa u baahantay marka inaad samayso? waxaad tegaysaa view markaad tagto waxaad imaanaysaa halka ay ku qoran tahay word wrap kadibna halkaas ayaa ku dhufan doontaa. weli ma aynan u gudbin muhiimaddii aan lahayn ama tutorialkeeni muhiimaddiisa. hadda waxaan u baahannahay inaan ogaano sidee loo isticmaalaa javascript ama sidee lisugu xiraa HTML-ka iyo javascriptiga. dhowr siyaabooda lisugu xiraa, weliba waxaa ugu caansan 2 qaab, balse muuqaalkan waxaan ku baran doonaa HTML-ka inaan ku xiri karno faylka javascriptiga. waxaan imaanaynaa qaybta headka gudihiisa ayaad waxaad awood u leedahay inaad ku qorto linkiga javascriptiga uu yeelanayo. tusaale ahaan waxaan imaanaynaa headka meesha ugu dambeyso. halkan ayaan u adeegsan doonaa linkiga javascript faylka uu yeelanayo. sidee loo qoraa linkiga uu yeelanayo? waxaan qoraynaa script markaa qorno si automatic ah inoo soo baxaysaa. markay inoo soo baxdo kadib waxaan gudaha u galaynaa open tag scriptiga uu leeyahay. kadib waxaan leenahay src oo u taagan source. waxaan dhahaynaa enter si automatically asaga sii dhamaystiraayo. kadib waxaan u wacaynaa javascript faylka magacii aan u bixinay. haddii aad xasuusataan ama halkan sida ka muuqato waxaa ku qornaa tutorial.js. kadib waxaa imaanaynaa source-ka ama src-ga waxaan ku qoraynaa tutorial.js. kadibna waxaan leenahay save. weli wax kood ah oo javascript ah ma aynan qorin. waxaa muhiim ah marka inaad ogaato halkeen ka arki karnaa ama sidee browserka aan isticmaalayno iyo javascriptiga isu tusi karnaa. waxaan u baahnaan doonaa marka inaan adeegsano developer toolska uu leeyahay web browserkaan isticmaalayo waa Google Chrome. waxaan isticmaali karnaa options badan, balse waxaan isticmaalaynaa stepka ugu fudud. waxaan leenahay right click markaan dhahno kadibna waxaan leenahay inspect.
kaliya waxaan u baahannahay inaan helno konsoolka. konsoolkana wuxuu inoo soo bandhigi doonaa koodhka JavaScript-ga aan qorayno. hadda ayaan waxaan u gudbaynaa faylkii aan sameynay ee JavaScript-gu lahaa. kadibna waxaan qoraynaa koodhkeenii ugu horeeyay ee JavaScript-ga. waxaan leenahay marka console.log. intaa markaan dhahno waxaan furaynaa oo xiraynaa bracketka markaa furno oo xirno. bracketka gudihiisa ayaan haddana waxaan ku furaynaa oo xiraynaa double quotes. kadib ayaan waxaan halkan ku qori doonaa statementiga aan rabno. tusaale ahaan sida standardka ah waxaan halkaa ku qoraynaa hello world. ugu dambeynna waxaan ku soo xiraynaa semicolon. kadibna waxaan leenahay save. annagoo adeegsanayno live serverka isla markiiba waxaan aragnaa wax walbo aan sameyno ama kood walbo aan qorno inaan si live ah halkan kala socon karno. waxaan rajaynayaa inaad qaybtan introduction-ka ah fahanteen. intaan ku kulmi doonno muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.